waxa laga maarmaan inaynu baraarujino maanta bisha Ramadaan waa 17 maanta oo kale muslimiinta waxa soo martay dhacdo aad u qiimo badan dhacdadaasi waa dagaalkii la baxay ghazwatu badr nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi magaalada madiinu joogaayo waa sanadii labaad ee hijriyada wuxuu maqlay safar quraysh ay leedahay oo shaam ka soo noqday oo garwadeen ka yahay abu sufyaan nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi wuxuu go'aansaday inuu safarka waxa weeye uu qaniimaysto nimankii gaalada ahaa ee culka ahaayeen ee maka ka soo saaray ee hantidoodii waxa la wareegay islaamnimo awgeed ula diriray nimankaas hantida leh nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi wuxuu damcay marka nimanka in uu safarkooda la wareego wuxuu ka haystay saxaabada wixii markaa diyaar ahaa 312 saxaabi bay noqdeen gaadiid badan ma aanay helin waxay heleen 312kii 3 faras iyo 70 neef oo geela ayay heleen intaas gaadiid laga dhigtay waxay ahaayeen kuwo gaadiidka ay wataan isaga dega oo waxa weey 3 niniba waxay ku hagaagayeen gaadiid oo isaga degayeen ninkii abu sufyaan ha warkiibu helay jidkii marka uu ku socday buu ka leexday dhanka iyo xeebtu u leexday fariinna wuxuu u diray quraysh uu leeyahay safarkiini col baa ku soo baxay maxamed iyo raggiisii baa ku soo baxay qayladhaantii iyaguna waa ku soo kaceen oo 1000 nin bay soo abaabuleen col ka kooban 1000 nin ayaa soo baxay nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi safarkii markii ay seegeen meesha badar la yiraahdo degay nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi 312 buu wataa nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi halka markii uu degay abu sufyaan fariin buu u diray nimankii quraysheed ee soo baxay wuxuu yiraahday anigu waan badbaaday noqda maya bay yiraahdeen noqon mayno waxaan rabnaa maxamed iyo culkiisa inaan kibir jabino waa gaale iyo isla weynideede waxaan rabnaa carabi awoodayada inay ogaato inaga haybeysato oo safar dambe aanu leenahay aan jidka loo gelin halka meesha badar la yiraahdo la isugu yimi halka nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi saxaabadiisii waa hal adeegeen wuxuu kala dooransiiyay inay noqdaan iyo inay dagaalamaan waxay doorteen inay nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi la jirkiisa dagaalamaan oo culka quraysheed fooda isdaraan iyagoo 3 jeer ku laban laabmaya markii la isu saftay dagaal adag ba halka ka dhacay intaan dagaalku dhicin nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ilaahi buu aad u bariyay ilaa go'iisu garbihiisa ka dhacay baryadii uu gacmaha kor u taagay ee ilaahi tabaaraka wa tacaala waa aad u bariyay ilaahi tabaaraka wa tacaala nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi saxaabadiisa waxa lagu xoojiyay malaa'ig ba dagaalka kala qayb gashay id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi 1000 min al malaa'ikati murdifin kun malag ba kala qayb galay dagaalka nimankii gaalada ahaa dagaalka waa lagu jabiyo waa laga adkaaday 70 nin baa laga dilay 70 waa laga qafaashay saxaabadii nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waxa shahaado qaatay 14 saxaabadii nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi kamida dagaalkaasi wuxuu la baxay يوم الفرقان maalinkii ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqa iyo baatilka uu kala soocay ayaa dagaalkaasi u la baxay dagaalkan nihaayadiisii iyo gabagabadiisii mar haday sidaa noqotay faa'iidooyin badan baa laga dhaxlay oo laga helay faa'iidooyinka laga helay waxa kamid ahaa nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi iyo saxaabadiisii markaa magaalada madiina deganaa in laga haybeysto oo carab oo dhami ay ka haybeysato أول هره waxay ahaayeen koox yar oo la ceersanayo laakiin iminka waxay noqdeen awood aan la dhayalsan karin faa'iidooyinka laga helay waxa kamid ahaa quraysh qabkeedii iyo isla weynideedii ayaa jabay oo hoos u dhacay madaxdii baa laga laayay dagaalka ninkii kibrey abu jahl la oran jiray baa hogaaminayay goobta la dhigay waxa goobta la dhigay utba ibn rabiica waxa ku baqtiyay umayya ibn khalaf rag waaweyn baa goobta la dhigay oo sanaadiidu quraysh ah madaxweyntii quraysheed iyo ragii ay ku dhaadan jireen baa goobta la dhigay waxa ka faa'iidooyinka laga helay kamid ahaa in ay soo baxeen nimankii munaafiqiinta ahaa
ومنافقين فائدة معها لكن مسلمين تمركي أوديستين كوا بدن باسو way baqeen kuwa gaala markay baqeen waxay noqotay inay islaamnimo muujistaan gaalnimana ay qarsadaan maadaama ay khatar dareemeen maadaama ay dareemeen dawladda islaamku inay xoogeysatay natiijooyinka laga helay waxa kamid ahaa aqeedadii saxaabada iyo rumaysnaantii rabbi jalla jalaaluhu ay rumaysnaayeen oo xoogeysatay waayo iyagoo koox yar ah baa ilaahay tabaaraka wa tacaala u hiiliyay وقالدي كقولي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يقول كوحير بإلهي ملائكة حوشي مركزي عجائب دقالك قدي صار كين هل كان إنان كوكوبي كري وحلقها لي تربية قيمة بدن أو الله تش نبي صلوات ربي وسلامه عليه صحابته وحكو تربية دقالك قديس لا تشي إنه حتى يسوي لا تشهدوا صحابتيس وقوبتي ودقي نبي صلوات ربي وسلامه عليه مركي هore goobtii uu dagay waa ka wareegay sababtu uga wareegay waxay ahayd saxaabiga al-Hubaab ibn al-Munzir ayaa wuxuu yiri halkan aynu ka guurno dhanka ceelasha aynu tagno inagu ceelasha xigsanno halka markaynu xigsanno ceelasha wixii kalena aan dagugno inta inagu aynu ka cabayna mooyaan colka inaga inala diriraya iyagu oon bay u dhamaanaya inaguna waxaynu helaynaa biyo aynu ka cabno taladii waa qaatay nabigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh dagaalka bilowgiisu waa la tashaday inay dagaalamayaan iyo inay noqonayaan waxa tarbiyadaasu nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada baray laga faa'iideystay dagaalkii Badr ahkaam tashriiciya iyo fawaa'id tashriiciya ka dhashay dagaalka oo ay kamid tahay qaniimada qaybinteeda iyo ahkaamteeda waayo waa dagaalkii ugu horeeyay gaalo wax laga qaniimeysto waxa ka dhashay sida maxaabiista loola tacaamulayo loola dhaqmay oo nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi maxaabiistii uu qabtay ma laynin ma uusan laynin wuxuu ku bedeshay nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi inay ama xoolo isku furtaan ama toban kamida saxaabadii nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi inay qoraalka iyo akhriska baraan waxay ku tusinaysaa nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi sidoo ugu dadaalayay xitaa aqoonta saxaabadiisa ragii uu qabqabtay ee gaalada ahaa ee maxaabiista ahaa kuwoodii aqoonta lahaa ee qoraalka iyo akhriska yaqaanay wuxuu amray nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi inay saxaabada qoraalka iyo akhriska baraan toban kamid mid waliba inuu toban baro ayaa nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi u faray dadka muslimiinta ahi inta rabbi jalla jalaaluhu ay ku xidhan yihiin alla jalla jalaaluhu waa u heelinaya laakiin mar walba oo ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka muslimiinta ay ka fogaadaan kitaabka rabbi jalla jalaaluhu ku dhaqankiisa ay ka fogaadaan guusha heli maayaan guushu waa ka raagaysaa iyagiyo guushuna waa kala dheeraanayaan ألا صلوا وسلموا على البشير النذير كما أمركم الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم إن في البلاد والعباد والبهائم من الجوع واللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك فأغثنا غيثا مغيثا فأغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما يفعله السفهاء منا اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين كيدا فاعد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا قهار
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إن أهل غزة يتبرؤون من حولهم وقوتهم ويلتجئون إلى حولك وقوتك، فاعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم يا قوي يا قهار. اللهم اهلك اليهود والأمريكان ومن عاونهم. اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم لا تدع لهم